السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي واحد سؤال وطن برنامج كاركتر سومالان وعلى بيت كيما ذا ستارتي في حرس الحياة لندن مانك صوصبت ساعد مركعة هي تدبر في النبو. داودي برنامج كاركتر سومالان وبرنامج هذا الله تعالى وعي جرينته يهر برنته قضية سوماليلان. برنامج كان هو برنامج فرنتي أنا قلت لك تدوينها رير سوماليلان ملك قصة يشوفان معارض محافظ با إن إسكوي دارسان فكرة دودة يوحي تلاقي الصلاة أي حيان سلمر كاسنا أي أركان inay waxtar u noqon doonto dalka iyo dadkaba daawada barnaamijkeena maanta waxaan ku eegaynaa hadaba runtii khilaafka soo kala dhex galay xisbi xaakinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kulmiye kaas runtii aad moodo maalmihii ugu dambeysay inuu maalmo maanta ka dambaysa uu sii fidayo una si kala baxayo garabyo oo runtii hay'adaha ugu sarreeya ee xisbigaasi aad moodo inay mataqaana ay ku hardamayaan ayada oo maanta mataqaana jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ognahay taariikhdeeda halkii ay soo martay iyo wixii loo soo maray isla markaasina uu yahay wadan yar oo runtii mataqaana aan aqoonsi caalami aan haysan wadan mataqaana dhaqaalihiisu aan buureen wadan runtii ku yaala gobol ay mataqaana dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan ayaad waxaad moodaa nasiib darro in ay noqotay cidii maanta mataqaana wadanka hoggaanka u haysay xisbiga xisbi xaakinka ahaa ugu sarreeyay in runtii maanta ay ku mashquulsan yihiin waxyaabo fara badan oo dantii dalka iyo dadka aan ka mid ahayn isla markaasina wixii loo igmaday runtii ka hor imanaysa oo aad oran kartaba arrintan waxa arrimaha caynkan oo kale haddii sii socdaan waxa ay khatar gelin karaan jiritaanka iyo gonitaanka Soomaaliland sidaa daraadeed maanta barnaamijkan waxa marti noogu ah Ibrahim Xuseen Dakhare oo ka mid ahaan jiray xubin runtii ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee xisbiga kulmiye waqtigii ay ugu jireen halgankii doorashada oo ay kagala wareegeen xukuumadda maxaan ku dhahdaa xisbigii kale ee udub 2010 Ibrahim sidaad ogtahay maalmahan ugu dambeysay waxa runtii ka jira khilaaf iyo mataqaana gurxan iyo guux fara badan oo xisbiga kulmiye ee xisbi xaakinka ahaa dhexdiisii kaasoo xubnihii ugu sarreeyay ee mataqaana aad moodo xisbigu inay isku hayaan oo ah madaxweynihii iyo gudoomiyihii marada intaynan gaadhin xisbi kasta ama urur kasta ama organisation kasta waxa uu leeyahay hab uu u dhisan yahay wuxuu leeyahay shuruuc waxa uu leeyahay mataqaana de wax kaaba ah oo mataqaana ay ku kala baxaan wax yimaadaan waa maxay sharciyada iyo mataqaana qaanuunka iyo dastuurka xisbi kulmiye uu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore waa mahadsantiin bahda Star maanta igu soo casuutay xafladatan amiin barnaamijka kan inaan mataqaana halkan ka hadlo aan shuruucda iyo xisbiga qaabku u dhisan yahay iyo habdhaqankiisu wuxuu yahay aan halkan dadka ugu waramo oo aan dadka reer Soomaaliland gaarsiiyo waxa weeye waxaan kaloo mahadnaqayaa maxay ahayd wariye xaashi oo isagana halkan maanta fadhiya oo igu wareysanaya waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ee daawanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta dabadeed waxa weeye qaab dhismeedka xisbiga haddaynu ka hadalno xisbigu wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo shirweyne xisbi ayaa jira baa ugu sarreeya xisbiga kulmiye shirweynaha xisbiga waxa lagu qaadaa 5 sano mar baa la qabtaa sida ku qoran inkasta oo 5 sano kii hore berigii hore 5 sano waqtigii uu gaaray uu jiitamay oo sanad iyo waxoogaa kale ay ku biireen kan dambana uu jiitamay oo isna ay ku biireen muddo aan intii ahayn ay ku biirtay hase yeeshee intiiba waa la qabtay marka halka waxa lagu doortaa gudoomiyaha xisbiga koow waa number 1 2 mar labaad waxa lagu doortaa afarta gudoomiye ku xigeen mar saddexaad waxa lagu doortaa xogayaha guud ee xisbiga dabadeedna waxa kale oo lagu ansixiyaa mar afraad xubnaha golaha dhexe marka golaha dhexe markaan qaab dhismeedkiisa ka hadlayno golaha dhexe waxay
iyana ansixiyaan xubnaha guddida fulinta ee xisbiga marka uu guddoomiyaha xisbigu soo sameeyo marka isaga shirweynaha lagu doorto ee uu shirweynihii ka soo baxo dabadeetana guddidii fulinta ayuu magacaabaya marka uu magacaantii dhameeyo ayuu dabadeetna markaa maxay ahayd golihii dhexe uu ansixinaya laakiin golaha dhexe goorma ansixinaya marka golaha dhexe laftiisa dib shir loo qabto ee uu guddoomiyihii u qabto ee iyaga laftooda markii duuduub baa lagu ansixiyey tiradoodii iyo magacaantoodii uu hubiyo shir la qabto la iskugu yeedho bil dabadeed marka ay uu yimaado shirweynaha xisbiga markuu la sameeyo bil dabadeed waa uu u yeedhayaa dabeetana hogaankii baa soo fadhiisanaya guddoomiyihii baa jeer garaynaya wax shir guddoona ma laha moogtahay maxay ahaydeen golaha dhexe markaa laakiin marka uu guddoomiyuhu uu guddoomiyo ee uu tiriyo ee uu qof listada u saxo ee uu eego ayuu dabadeetana wuxuu ka dhex dooranayaa shir guddoon guddoomiye inta aan ka dhex galo intaan gaarid shir guddoonkaasi guddida dhexe lafteeda see loo soo doortaa ma guddoomiyaha soo doortaa guddida dhexe marka hore ayaa waxa soo doortaa guddidii qabanqaabada ee xisbiga ee markii hore loo diray ee xisbiga soo shirka soo qabanaysay iyo guddoomiyaha ayaa isla eegaya dabadeetna horta marka guud ahaan laga hadlayo magaalooyin laguma soo doorto waa magaalooyin baa lagu magacaabaa laakiin reality markaan umino siyaasaddan waxay ku dhisan tahay reere ku dhisan tahay waxa weeye xisbiga reerihii ku jiray baa loo qaybiyaa xubnihii reer walba in baa la siiyaa waa loo qaybiyaa dabadeetana marka loo qaybiyo ayay listadii keenaan dabadeetana guddidii qabanqaabada iyo guddoomiyihii xisbiga ayaa isla ansixinaya oo eegaya markaa ninka mar walba guddoominaya ee la ansixinaya ee eegaya inay wixii qabsoomeen iyo inaanay qabsoomin iyo waxay ku yimaadeen waa guddoomiyaha waa qaabkii annagu markii uu axmed maxamed silaanya guddoomiyaha xisbiga ahaa uu ma garanaysaa maxay ahayd uu sameynayay marka taa la sameeyo haddii uu soo dhammaystirmo liistadu bartaasaa lagu ansixinaya haddii aanu soo dhammaystirmina duuduub baa lagu ansixinaya markaa dib baa guddoomiyuhu iyo hoggaankii xisbiga ee ma garanaysa soo baxay ayay dib cid ugu dirayaan reeray u dirayaan si ay usoo dhammeeyaan dabeetana intaan shirka la qabsan ayaa lasoo dhammaystiraya tusaale ahaan baan ku siinaya annaka dibadda 15 xubnood baa la siiyey berigii 15ka anaa soo qaaday anaa guddoomiyihii markaa UK iyo Europe ahaa waxa weeye guddoomiyihii markaa ugu tunka weynaa ee waqtigaa dibadda markaad egto dee xisbiga kulmiye UK baa ugu xoog badnayd dee markaa Europe iyo UK markaa anaa soo qaaday 15kii waxaan u qaybiyey carabta waxaan u qaybiyey North America badhna waxaan iyo Europe iyo UK dabeetana markii magacaantii la soo sameeyey ayaan dib u ururiyey magacaantii ka wasaxay dabeetana waxaan u diray guddoomiye xisbigaan u diray صح anoo ogeysiin siinaya xubnihiisii kale ka hooseeyey ee mataqaana maxayd kuwii kale guddoomiye xogeenadii na siinaya iyo xogayihiiba siinaya waxaan u diray axmed maxamed siinaayaan u diray markaa ahaa guddoomiye xisbiga isna markaa wuxuu u gudbiyey qoladii ururinaysay ayuu u gudbiyey markaa wuu jeegaray wuu iska jeegaray markaa runtii qof aan la hubin oon guddoomiye hubin laguma dari karo صح daawada weli waxaad nagala socotaan Star TV xarunta dhexe lana maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay khilaafka soo kala dhex galay xisbiga kulmiye oo wixii aad fikradiina ku saabsaneed haysaan aad ugu soo gudbisaan khadka telefoonka haddii aan xogaa aan u wacdo xagiisa waxaa ku jira xasan macalin qaasi xasan ma maqlaysaa xasan ku soo dhawow fikradaada ku saabsan khilaafkan soo kala dhex galay xisbiga kulmiye iyo soo aragto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ورتمرك ولا إله بينهم هذا علينا إذا كان وان السلام يا بهذا ستار تيفي خلافك خلافك وأرهنا ظهر ووحى وحدومية waxaan anigu
siyaasi mihi laakiinse arrinkan khilaafka ayuun baan in yar xaashow anugu kugu darayaa oo aan doonayaa inaan dadkana halkaa aan doonayaa inaan ummaddii somalilan u duceeyo oo khilaafkaa sidii ilaahay inooga saari lahaa un baan anigu guud ahaan generally kala hadlayaa ee xusbina ma taageero siyaasina mihi hay solo wixii diinta islaamku khilaafka ka tiri sidii ay ilaahay quraankiisa ku sheegay un baan doonaya inaan dadkeena u caddeeyo aan xoogaa in yar guud ahaan ka idhaahdo ay quraan waxay odhanaysaa walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wey ayay odhanaysaa aayaddaas haddii khilaaf yimaado waa lagu fashilmayaa awoodiinuna way yaraanaysaa oo way meesha way ka baxaysaa haddii uu yimaado muran iyo khilaaf way yaraayada quraanka marka waxaan odhan lahaa fariintaydu waxa weeye in horta tviyada iyo websaydyada iyo saxaafadda waxyaabahan imika dawlad maqlno inaga dhibaatada halkaa markaynu ka aragno wasiir daakhiliga oo hadlayo oo le waxbaa dhacay ama ninkii booliska u sareeyay oo iimaan oo hadlaya oo Soomaaliland arrinkeedii ka hadlayo le arrinkaas xalay to dhacay inaga dhiilo weyn baynu haday nahay dadka qurbaa jooga aad bay dhiilo xoogayno inoo tusaysaa inuu aad baynu uga naxayna waxa uu wanaagsan marka wixii ay idinku saxaafad ahaan fariintayda aan doonayay in saxaafadda faro weeye fariintu horta waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan bal horta qolada saxaafaddu inaanay arrinka buunbuunin oo aanay ka dhigin wixii waraysan dadka doonaya inay maaragtay wixii sii bataan oo khilaafka sii ololiyaan oo dab ku sii sidin baan ayaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo gabaygii ayaantii hore aan khilaafka kaga hadlayay aan ka hadlayay carabka iyo saxaafadda aan kula hadlayay baan kelmad qura ka maqashinaya xaashow waxaan ayaanta hore waxa ku jirtay carabkani tufhoodii iyo nimco weeye kugu taal marka ay colaa tahay ragta lamay ku dirir galo tolaydaadu seef iyo waran lagugu taagiyo toorey ka xoog badan adoo haynta taag daran marka guurti tobanqadii marti kuugu tahay jees ereyada tahniyadee fadal iyo tacaalihi timir lagugu sooriyo tulud qalanka dooroon marka lagu tumaatiyo tii wadaadka lagu sulo tafaafulanka weedhuu hadday kugu tisqaadaan cudur halista taabtiyo toos iyo ka daran nabar tuulkaa la yaab kale takrifalista khaladka tolkayow ha laga jiro waxaan loogu talagelin ama khayr ku taxalluqin qofna yuu ku talax tegin ragga wararka tebiye tafatira website iyo tviyadoo idil waxaan talo ku farayaa taardiristu waa sharaf aad ku tahay mas'uul iyo taabaqaad xil gudan kara aakhirana ku taal tacdarrada iyo eediyo ka ilaasha tuurtuur ereyada tuxaanta leh ha ku qorina tobiyada sida garow in laga tumay takarkiyo qaniinkiyo tagsi iyo ka gura dulin rag isdoorsanayo hebel ku taagiyo isu ura sidii toon ayaa taagagii iyo togii herer ka bu'aye toorta ha isku carinina bulshadana tashuush iyo ha ku ridina tabaqnoon ha ka tegina edebtiyo tawakkalista khayr kale taalana xisaabtiyo ku darsada tallaabada horta qoladan wallahi waa xaashi iyo gruubkii tviyada iyo website-yadan gabayga u tiri waxaan markaa doonayaa aan aad iyo aad baan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu khilaafkaa inaga soo aftiro oo ku dhameeyo sidaa odayaasha iyo guurtida iyo qoladaa ku dhex jirta arrinkaa ku guulaysto oo labada qoloba maqlaan oo arrinkaasi intuu soo dhammaado si wanaagsan oo is iyo sharaf iyo wanaag inuu arrinkaa ilaahay inoogu dhameeyaabaan aad iyo aad ayaan ilaahay uga rajaynaya waana idin ducaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم هذا سدا runtii mataqaana waxaad sheegay ama aan ka wada warhaynaba muddo ugu dambeysay waxaad moodaa runtii aan khilaaf hor leh inuu soo kala dhex galay xisbiga kulmiye xisbi xaakimka hay'adda wadanka hayay haddii aad baad maantay xisbiga iyo mataqaana shuruucdiisa isoo shaqeeyo maxaas leedahay way keeneen mataqaana khilaafkan maanta taagan ayadoo maalmo dhaweed uu ahay waqtiga uu qabsamay shirweynihii xisbiga oo lagu heshiiyay wixii lagu heshiiyay maxamed khilaafkan la keenay leedahay waxaa keenay khilaafka
arrin muddo dheer soo socoto waxa weeye khilaafku dad badan baa ka saadaalinayay had iyo jeer oo haddii laga hadlo had iyo jeer xisbiga kulmiye wuu isku qarxi doonaa akhirka xisbiga kulmiye dhexdiisa ayaa waxaa ka iman doonta isqaqabsi iyo isxagasho iyo adigu qaar waxay saadaalinayeen inuu burburi karaba hase yeeshee wax badan baa horta dhaqanka Soomaalidu waxay tiraa ceebtood maaha waa caadadood dhaqanka kulmiye ayaa had iyo jeer wuxuu ku dhisan yahay markaad u fiirsato eed eegto anoo kii aan u ahaa goobjooga u ahaa 2007 baan ka tagay xisbigu markuu dhismayay markii dambe siiraanya laga dhigay gudoomiyaha iyo waxa khadka telefoonka hadii aan xagga soo wacdo daawada magacaaga ka soo leeso maan wada wax ka soo hadlay London korogaad magaca walaal magacaaga magacaygu waxa la yiraahdaa maan wada okay haye wax ka soo hadlay London soo dhawaad wala socotaan marayna barnaamijkan aragtida ku saabsan khilaafka soo dhaxgalay ee xisbiga kulmiye marka hore aad baan idin salaamayaa martida sharafta leh iyo adigu iyo wariyahaba waa aad baan u salaamayaa soo dhawaada marka horta hadii waxaan ka hadlayaa saddex qodob ma taabanaya haddaan soo yareeyo haye horta dhiigan daatay ninka ku dhintay ama gurigan loo dhacay aad baan uga taxsiinaya ummadda Somaliland waa si fiican walaal waxaan jeclaan lahaa runtii maanta qodobka aynu ka hadlayno khilaafka soo kala dhex galay xisbiga dhexdiisa arrimahan kala dhacay runtii way jiraan laakiin waa soo gaabin taan waan si dhaafaya haye horta sharciga ku salaysan yahay xisbiyada waddanka ka jira bilowgii waa bilow imika waa raad barad haye markiisa horaabaan dimuqraadi ku salaysnayn صح markiisa horaaba ayay ahayd laba nin oo dee marka hore meel soo istaago oo dee idii doortahay marka dambana idii anaga xisbiga leh markaas mar walba waxay imanaysa daldalooyin صح marka inta dimuqraadiyadda koraysana wuxuun baa dhacaya laakiin dhiig daatin aan iska raadino baa ayaa wanaagsan waa si wanaagsan madaxweynaha qodobka sharciga anigu ma garanay sharciga sida marka Somaliland inuu ku yeelay kale madaxweynaha marka xisbiga uu ka soo baxo madaxweyne wadan noqdo waxa wanaagsan inaanu xisbigaasu inuu mid si dadbana guud uga tirsanaado mooyee ama uu ka tirsanaan jiray mooyaane inaanu ka tirsanaan baa wanaagsan sababtoo ah imika de shakhsi iyo madaxweynaha ayaa isqabsaday madaxweynihii wadanka صح madaxweynihina waa kii lahaa dagaalka gal hadii birta dagaal la galiyo waa kii laga amar qaadanayay muunad gooniya saaran oo de waxa wanaagsan marka madaxweynaha inuu dhaxdhaxaad ka ahada arinta noocaas oo kale صح waa si fiican marka uu sharaxaad doonayana shanta sano marka ka dhamaato xisbigaygi baan iska sharaxaya waa sax حق بوليه اوكي لكن شقديده iyo kala dhigdeeda iyo nidaamkeeda حتى dadkiiba marka la yiraahdo waxay sitay hebel iyo madaxweynihii umadii laba nooc bay noqonaysaa dadkina calooshin bay kala taageersan umadii baa la kala qaybiyay okay umadina madaxweynuhu yahay okay waa si fiican hada walaal adigu soo koobay halka maxaad arkaa adigu waxaan arkaa la qaban karo la deji karo in la dejiyo mustaqbalkana wixii waxana oo kala saanay u dhicin xisbi walba wadankeena ka jira saddex xisbi imika jira in dib isugu noqdaan صح oo ay marka wixii talada mar walba waa in miiska la soo dhigaa dimuqraadiyaddu waxay ku wanaagsantahay waxaan inaan la qarin صح oo cidda hadlaysa waxa laga hadlayo cidda gacanta taagaysa qofka xisbiga soo galaya qiimuhu ku soo galayo wuxuu shaqada uu ka qabanay xisbiga xisbiga xarumihii way aad u fara badan yihiin marka waxaan oran lahaa dib isugu noqdaa mar walba waxbaa naga dhacaya waanu gaari doonaa laakiin naga daaya gacanka hadalka iyo danta guud ninka yiraahdo maantana sharcad bixiyay maantana shaar madow bixiyay maantana waa qoladii kale waddankiisii buu wax yeelayaa qofkaas oo kale waxa wanaagsan marka inuu qofkii haddii wax arkayo daloolooyinka iyo waxyaabaha nimanku sheegay qofkan oo kale waxa wanaagsan inuu si dadban waddankiisii u howlgalo oo amniga iyo dawladda iyo salaadiinta iyo waxa meesha joogaba uu kala tashado yiraahdo wadadaas lagu socdaay nimankaas asaasa nagu jire sida intaanu dadweynaha intaanu ka naxin أنا مالسو يستاج أيضا محبط عمبا. هذه أدبل مثلا كوسو دوينا برامج كرت الصومال كسوق الصومال كسوق صبتيا ساعدنا وكله في رضا في عن أدبل مثلا تولال. الإبراهيم سيدا أو داودها كده واجي رنتي
waxyaabaha uu highlight gariyay ama uu dabool ka qaaday waxa kamid ah wuxuu yiri waxyaabaha Keeniyad moodo in ay keenaan arrimahan maanta in isku cakirmaan oo madaxa la isla galay runtii dastuurka u yaala xisbiga laftiisa iyo sharciga laftiisa xisbiga gudihiisa u yaala ayaa mar runtii qeexneen oo madaxweynaha iyo mataqaana guddoonka xisbiga wixii kala wadi lahaa ayaan runtii qeexneen ma jiro xeer أو قاحية كاسيو وحوي حركة هوسات كحسبكو وسينيا اسمها أول سينحي وقدومية وأفر قدومية كحجين وحوي وحجية جود وحوي وحبني كلها دحى يجودي فرندوي مركا وقاحية حسبك وحى أودي سلاء حقوق وشرع وسيء إن معموله وحوي وقدوميها يا أفرت قدومي كحجين يو حجيها جود كلها دحنا سنة كم مرة بفريستان مركا وحوي شرع أي كابس يكون دارس كسمية وحيد كل بسوق كذا awoodooda waxa kamid ah inay ansixiyaan gudida fulinta awoodooda waxa kamid ah in xerosaadka ay ansixiyaan awoodooda waxa kamid ah golaha dhexe in ay musharaxiinta kala saaraan iyagoo halkaas ay ku xidhayeen laakiin shaqada maalulba la qabanayay xisbiga waxa gacanta ku haya matqana maxay hogaanka ku haya hogaankana waxa u madaxa gudoomiyaha waayo gudoomiyuhu waxa weeye waa gudoomiyihii golaha dhexe waa gudoomiyihii gudida fulinta waa gudoomiyihii guud ee xisbiga صح واسف عن خلق الفونك ده حقيقي وعد داود بقى عليك صوته codka sare u qaadar ma maqlaynaa halo magacaaga soo leeso aniga halo afro ma santi magacayga Cali Abdi Aziz Baleelaha Abdi Aziz soo dhawaado codka kor u qaadaya walaal waxaan codkina isba doonta markaan su'aasha digsiga waxay la hadlayeen codka adigu soo celiso in goortan buu yeemanaya stuula teemanay laakiin wax mowduuc ba hore u galaya hay walaal horta xusba kulmiye sida loo socdo iyo sida loo wadaba أتاني رنتي لما هو ناكسنا بوت صار لبضة بيدحوا مكان رنت فاكت مكان كارلو صح قدومي وأنا ما ناكسنا مدحوينه أنا إذا ما ضل للي هاي وسيرة صونا ما ناكسنا ليش واحد لكن كده ده إما واحد مدرسة وسعة الشيء كذا تلفزيون هذا كاكي ولا واحد من القبائل إن قبائل سود حقلنا هي حتى لو غير هبل حتى لو غير هبل عن حسب كل يملك وراء مدينان كل سنة صح for example bankusini idinko raaliga wada inanka maanta aad wareysanaysaa kula fadhiya shalafta shir buu qabtay ninka weynanka odayga kula fadhiya raalinayga ahaada boqolkiiba ma aayo shir buu qabtay uu leeyahay gees dhinaca uu saarayo gees dhinaca saarayo haddana maanta waxaan la yaabay anoo in my life aan television ka soo hadlay maanta halkan intuu yimid wax laga waasida wax loo weydiiyaa ninkii gees baabu yahay already both sides gees buu yahay one side buu yahay in wax laga weydiiyo xisbiga kulmiye su'aalihiisa ila ma habooneen aniga run ahaanti taagnan ku waramaya anigu se waxaan qabaa ra'yi ahaanteeda madaxweynuhuna uu qaldan yahay in gudoomiyuhuna uu qaldan yahay waxa dhexda isugu imanaya dhexda la isugu keeni karaya waxa weeye ummadii meesha wada lahayd ee xisbiga wada lahayd inay si yimaadaan ka wada hadlaan ka wada tashadaan reer Somaliland iyadoo qofba loo eegay reer hebel loo eegay reer hebel loo eegay okay وصفي عولال متى هذا بس runtii aad sheegtay marka aysan u dhaqmaan labadii qof ee hogaanka wadanka ugu sareeyay ah gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynihii arinta caynkan cawaaqib caynkee ayay ku yeelanaysaa nabadgelyada iyo madaxbannaanida Soomaaliland walaalo haddii labada qof isu yimaado haddii dacal shicibku yahay shicib wanaagsan صح aniga mashaakilkeeda waxa weeye shicibku dalkayga waan jeclahay wixii marba madaxii noqonaya iyo kii imanaya kasii socday ka iman doonaba waan wada jeclahay I don't care wuxuu yahay iyo meeshu ka yimid gobolku ka yimid laakiin waxa weeye haddii dadkaygu wanaagsan yahayn aanan midna raacin midna aanan inaadeer ku raacin midna aanan la socon waxa weeye dadkaygu wuu hagaagi lahaa waxna dhibaato ma dhacayso laakiin marka aan anigu ay waxaan la socdaa ninkaasaan la socdaa ama geestaasaan la socdaa waxa weeye mashaakilka inoo keenaysaa waa taa dadka kharibaysaa waa taa marka waxaan leeyahay ninka haddaad keentayba ee other sideka nin kaloo isaguna ka ageenaysa ninkan inay soo hordhigtaan ayay ahayd ii sheegayaba iminka maba rumaysid waan iska xirayaaba I don't believe whatever he said to me
أو شيء أو نور بقدر أوكي ما هو صفي عورة لكن وحوين كهذا ما ينا مانتا عيد تاجرسي هاي عيد وكسر تبدنا وحي الشرع هو قرن ما نقول لنا عاد مانتا جاي هاي وحي مانتا ويجي يصير جبتها أردنا لكن متى كان أنكويدين لها هذا برضو عين كات هاي مياني هذا بقى صورة قلا هين إن أمد يحس بالحديثو لهلا قف قراءة صدحات هذه اللي بدي قف يوسر إنسان نقدان أردنا كورن هو مرسل وطن كلها هاي تذكر حسب وطن كلها ولا الله حاشيو وطن ولا كلها حاشيو تذكر حسبي قال لها كسر شيء يحب قبل الصومال اللي أنا أكون وكيل هاي هاي سوية ما بين كحونا كقبتين عبد المرحول فيها هاي لا تبدأ كيس أس هذه الحاجة إنك مرحول بدون فيها هاي لا تبدو دفنتي لكن ولا الله إنكم ما تنا أنا حلو عن كاركي تلسون لا هذا غير هبل أنا كله أنا هذا غير هبل أنا كله فتو قوة وضع ما تعد بخالص عد ضد بخالص بحوي بشكل كان هايستا بحوي إنك من ديمقراطية بالمركز نهراني يبشرين مركز غير قبيل كشقينية مركز غيران قبيل أن كنا والله وحوي وين عن حدك الشيء وحوي يروح صح يروح صح سيب الله هذا كيكرا حوي دكتور إني سوي ماذا أنا كان كهذا واتا لكن من تعايل يعني تعايش يفتن مشر أنا دور بحكم ما هيستا حسب لكم أنا أنت بحكم ما هيستا تقول لي تاني وأنت اللي قلت أنت هذا أنا متعلي إنه ضباب عشتي متعلي وضك جبابان شاني بالبنية ولا هاي حدكم إيه وأنا وضناها والله وضنا حنون بيقول عمك من قبل واحد لكن ولا الله بليز ما كان حكينا إنسان ولا الله بود ساكر ولا تليفون كان بهذا كذا ما مقلي هرا وما مقلي لكن انت اصلا انك تبحث خلينا يا هذا نيك اوريك كل فدينا بقول شو بخليga هو كل yahay هذا حال halkaas ku soo mariyay hadan kugu gafay laakiin waxaan ka hadlayo waxaan leeyahay wasaar ma ka ku qaatay inaad tahay ee adab seer kale waan jeclaa aad iyo aad baad maasantay ku soo dhaweynaa firdaada qurux badan maalin ka soo sabtaya barnaamijka Soomaaliland aad iyo aad baad maasantay إبراهيم سيدا runtii ma taqaanaa uu daawadinaad sheegayo kulli waxaad moodaa dadkii xisbiga garba ka tirsanaan jiray xisbiga kulmiye inay runtii ay garba iyo u kala qaybsamayaan reero taasoo runtii aan waxyaabo fara badan oo dan iyo dalka iyo dadka mid aan u keenahayn maxaa keenay daba dadku inay soo dhaqmaan maadaama wuxuu xisbi ahaa oo siyaasad lagu madaysnaa maxaa maanta qabiil iyo reer iyo garba maxaa loo kala safanaya horta runtii marka runta laga hadlayo xisbiga kulmiye waxa weeye laba qaybood weeye habdhaqan buu hoos u leeyahay iyo xeer hoosaad buu leeyahay habdhaqankiisu wuxuu ku dhisan yahay reeruu ku dhisan yahay marka xaqiiqada la samaynayo marka la raadinayo in xisbiga la soo qoro cid marka golaha dhexe la keenayo marka waxa la keenayo waxa lagu sameynaya reeraha lagu sameynaya okay waxa weeye taa waxa keenaya runtii jahwareer baa meesha ku jira haddii sharciga xisbiga lagu dhaqmo oo siduu uu yahay la raaco waxaan qabaa in aanay horta dhibaatadan maanta dhacaysa iyo isaabgalashwaagani aanu dhimaadeen waxaa ka maqan qodob ka maqan meesha waxa weeye mid baan doonayaa inaan ninkii hore aan refer gareeyo hadalka uu yiri xeerkan kala qeexayn shirkii lagu qabtay balaasa ee golaha dhexe ay ku qabsadeen ee burca lagu qabsaday 2008 lagu qabsaday golaha dhexe markuu fadhiistay xeer buu soo saaray xeersaas ku jiraan in gudoomiyaha xisbiga ninka maanta ahi gudoomiye ku xigeenkiisu marka ay bil doorashada galaan hadduu gudoomiyuhu helay hadduu waayaba inuu ku wareejiyo gudoomiye ku-xigeenkiisa oo gudoomiye ku-xigeenku noqdo watan marka kulmiye xeerka xorosoodkaasi ayuu ku kala qeexay oo ku kala saaray xisbigii iyo xukuumadda ku kala saaray okay way khalka telefoon daawada magacaaga soo leeso hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة codka kor u qaad koo maqlay walaal aamina la yiraahdo waxaan ka soo hadlayaa Sweden aamina soo dhawo walaal waan dhowahay walaal waxaan isku kordhinayaa muxuu ahaay horta walaal ninkan hadda meesha kula fadhiyaan rabaa inaan wax idhaaho haye ninkani walaal waxa weeye waa nin aan muxuu ahaay niman badan baa jira oo reer Somaliland oo TV-yada soo fadhiista oo qabiil iyo waxyaabo aad xun ka shaqeeya haye midna Soomaali channel laga daawanayo daraato oo isaguna reer London ah oo macallin oo magaciisa iga maqan kaas iyo ninka booba la yiraahdo isaguna Somaliland jooga ee muxaan jiray wasiirkii hore waxa ahaan jiray kan hadda kula fadhiya qaar fara badan baa oo waxyaabaha ka shaqeynaya yani aan koobi karin walaal okay waa si fiican walaal dadku runtii fikradooda ay leeyihiin qof bas u fikra waxaan jeclaan lahaa walaal
mabduuceena maanta inaad ku joogto walaal jeclaan lahaay bal khilaafkan soo kala dhex galay ee xisbiga kulmiye iyo sidaad u aragtay sidii xalku uu yahay bal taas maanta inuu ka hadal wax kale inoo dambeeyaan waan ogay laakiin walaalkaa waxaa nooga daran ba niman badan oo walaal reer somalilan oo aanan akiifyada inaanu ka aragna aan rabin oo saa somalilan midcirkeedii u tagaya kuwaasaan aan jeclaysanayno oo qabiil iyo waxyaaba fara badan hoosta ku haysta khilaafka kulmiye walaal haddaan usoo noqdo walaalo kulmiye horta xisbi waa xisbi imika for example wadani waa xisbi ucudi waa xisbi kulmiye waa xisbi xisbigii waxa weeye waxa ka soo dhex baxa nin madaxweynaha baa ka soo dhex baxa xisbigii haddii laba madaxweyne uu yeesho oo uu mid yaha laba nin xisbigii ka tirsan mid walba yidhaha ana madaxweynaanahay dee walaal xisbigii haddii masiiraayo ku dhawaaqi lahaa oo odhan lahaa war anigu madaxweynenimadii waan iska dhigay muxuu haye kaalay muxuu haye muuse biixi ama kulmiyo nin iska soo doorta dee markaasaa nin kale meeshii iman lahaa laakiin xisbigii markuu xisbi yahay ee madaxweyne ay haystaan madaxweyne kale dee inuu isu soo sharaxo dee halkaa waxa kaaga muuqanaysa xisbigaas inuu kala jabayo laakiin oo xisbigii laba u qaybsamayo oo dee laba nin oo xisbigii kasoo wada jeeda ay meeshii tartamayaan inuu baabaayo xisbigaas halkaasaabay ka muuqataa laba nin iska soo sharaxdo kasale haddii laba nin iska soo sharaxdo dabcan way kala qaybsamayaan bini'aadamki laba qof uba taarigay laba sarba isku xisbi ba isku raaceen oo isku doorteen okay hadda waa si fiican maxaad kula talinaya walaal mataqaana xisbiga iyo dadka shacabka ah runtii aad moodo inay wixii qabyaaladii reer u rogayaan ee aan fahamsanin waxa la isku hayo oo niman cidina dhakada soo wada xirto reer Soomaaliya halkaas soo fadhiisan walaal ka daalay hello أنا وكمغلا يا ولاد. ها مركز هذا ولا حلقة محمود نقونيا وحويان كلي. حلقة ولا نقونيا هرت وحابة لمن كان يسوها يا حسين يسوها يا ولا وحابة كدرنبا. لمن هي سؤال أنا نيك بوضة ليه هاي كان هذا كله فدي ميت كلا مثل هاي حيلنا سوون إنجليز كشوجة. يعني إني ما فرق بدون هي سؤال أنا طب هورينا يا بتصي واحد يسوها قال أنا مو كيف هذا أنا وين أروح الله وحي كلا سوها يعني يسنتني. ما ولا شفته. أنا والله كيف يلا ونسكتنا ولا مصدق لذكر نوع عصا كلا سؤال أنا بابيلي. حسبي أنا حتى هالمدحوين الدورتان. halka madaxweyne markuu soo istaago iyo waxaan walaal waxba dooran maayo marka marraba uu yiraahdo dadkii kale marka ha keensadaan ama oo ha yimaadaan laakiin isbarbariya caniyo waxaan walaal waa dumin okay aad iyo aad baad walaal maasantahay waqtigoona u yardatay waxaan rabaa dadka kale in khadka telefoonka siiyo aad baan ku soo dhaweynaa walaal runtiina dadka caynkaasi yahay waxa loo baahan yahay adiga iyo dadka kale ee inta fiican fahmaysa in ay runtii ay wax u sheegaan oo firda la isdhaafsado aad iyo aad baad maasan ku soo dhaweynaa arrinta Soomaaliland waan ka soo sabtiya Ibrahim runtii hadaba arrimahan horka leh ee xisbigii maanta soo kala dhex galay runtii aad moodo dalkii iyo dadkii in ay mataqana ciriir iyo culus walban saareen maxaad leedahay arrinta maanta arrintan keentay maxay tahay wallahi runtii arrinta waxa keentay waa khilaaf muddo dheer waqti 2007 bilaabmay waqtigii xisbiga kulmiye la soo dhisay buu bilaabmay waqtigaasi oo labada dhinac Muuse iyo Axmed ay labada xisbiga soo wada dhiseen sidii ay باور كلا قيبسينيين تبتنا أي كل شيء إنه من القدوميين نقطة من القدوم كعين نقطة تبتنا ليشلت مركز الشرويني لقبتي شذي اللي وان صحيح تبتنا أوتيل بلاس ليشلت تجي برعلة تجي تبتنا كله دحى أي لحدين قدومي كعينكم مركز أو مقارنة يسامح خدك تلفون كذا ولا ما يعلق صوت لسه هلو هلو ها ما يمغلس ده ما يعلق صوت لسه السلام عليكم. وعليكم السلام. برنامجك ودقيسنا ومحمد أوجو ودلك كويت. محمد سعود ولو تيفي سنة قصي ولا لا؟ وانا دبيسا بصراحة إن ولا لها يجا وقوي إسقى قبسان ومشكلة الصومالية إن ودقن waxaan dhihi lahaa isqabqabsigiina siyaasadeed ku dhameeya wada hadal kana amar qaata golaha guurtida laakiin xisaab kasta waxaa jirto shuruuc u degsan marka shuruucdii hala tixgeliyo sidii ku habboonna hala yeelo amniga wuxuu khilaaf hadduu yimaado amni darra imaanayso marka haddii maxaa la dhahay ay isqabqabsadaan madaxda walaalaha iyaga in ay ku dhameeyaan khilaafkooda wada hadal ayna dhageystaan golaha qabaa'ilada ama guurtida ama hadda sida ayaga ay shuruucdoodu tahay صح waana mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsan kusoo dhawaanaysa Soomaaliya maalin kasta oo sabtiya saacadan oo kale Ibrahim waxaad tiri maxaad ku raadayay khilaafkan wuxuu ka soo bilaabmay 2008 waqtigii lagu qabtay shirka magaalada hotelka Balaas magaalada Burco haye
waxa weeye markuu sidaa ku bilaabmay dabadeetna waxaa lagu heshiiyey in xeer hoosaadkii golaha dhexe ay ku ansixiyeen in gudoomiye ku-xigeenku uu noqdo gudoomiyaha marka bil doorashada qabto hadduu gudoomiyuhu helay hadduu waayaba tii way dhacday gudoomiyihii wuxuu noqday madaxweyne waxa weeye isla bishii kuma wareejin laakiin muddo yara jiitamtay waa ku wareejiyey moogtay okay taa markaa macnaheedu waxa weeye waa xeerku wuxuu qeexayaa in xukuumaddii iyo xisbigii la kala saaray laba xukuumadda kumay qayb gelin hogaankii xisbiga kumay qayb gelin oo waxa weeye maadaama ay xisbigii ku hadheen xisbigii bay ku koobnaadeen inay xisbiga dhisaan dabadeedna khilaafku waa ujeednay inuu muddo haddana soo socday uu soo dhismeeyey bishii October baan filayaa ee sanadkii dhaafay ayay ahayd in shirweynaha la qabto way dhici weyday dib uu dhacay uu soo jiitamay maanta ayuu yimid waxa weeye ninkaasaa ka dhawaajiyey wuxuu yidhi markaad eegto sharciga haddii la raaco iyo haddii ma garanaysaa guurtidu runtii waxaan qabaa halka ay arrintani may sii buurnaateen hadday guurtidu ay aad arrinta wax ka qabanayso halkaa dabacsanaan iyo jileec ayaa xagga guurtiga ayaan u tirinayaa runtii waayo guurtida ujeedadeeda ugu weyn waxay ahayd khilaafaadka had iyo jeer dowladda dhex yimaada khilaafaadka shacabka Soomaaliland dhex yimaada nooc kasta uu yahay in ay xaliyaan marka waxaad moodaa inay guurtida ka gaabisay hawsheedii okay daawada magacaaga ku soo dhiso maxamed ismaaciil haylo soo dhawow wal socodman barnaamijka Soomaaliland waan dhegeysanayay din anigu 36 sanadood dalka ka maqnaadaanay haye heerka uu marayo maantana waan arkayaa صح waxaan anigu ku talin lahaa Iran sanadkiisa ha dhamaysto صح xusbiga kulmiye la yiraayo inta ka madaxaya inta ka shaqeysana siyaasadii Soomaaliland way ku fashilmeen صح gebigoogu dhahay xasilaan صح laba xusbi oo kala jira doorashada loo qaado hay heerka uu maanta taagan yahay wada hadalka aan ka maqlaayo magaaladii Hargeysa iyo ummadda waxa weeye macasiiraan uu ku fashilmay siyaasadii ummadda صح maxaa keenay qabiilka iyo qabyaaladda maxaa keenay waxa weeye waa foolxumo waxa weeye gebigoodu waxa ay doonayaan uma shaqeynayaan dalka iyaga doonaya jeebkooda inay u shaqeystaan صح maxaa ninka dalka dhisaya qoriga qaadanaya diminaya muus asilo laba qof haday uu dhiig kaga dhaxdaatay Hargeysa Siiraan inuu asilaabay ma dhiig buu keenay dadka mise dheef buu keenay صح midda kale xusbiga siyaasadda ku doonaya qabyaalada wata muxuu yahay صح ma qabyaalad baa lagu dooranaya miyaan qofkani waxaan dadka ummadda u qabanayo lagu dooranay anigu waxaan leeyahay gebigooguba way ku fashilmeen Siiraan should be cancelled all and kulmiye should be destroyed all okay in la baabi'iyo ayuu xusbiga kulmiye ayo ugu wanaagsan Soomaaliland iyo dadka dhulka degan hadii labadooda la rabo okay aad baad ma sida aragtidaadaasi waan ku soo dhaweynaa aragtida Soomaaliland ee maalinka sabtay saacadan oo kale aad baan kugu mahadnaqay dadkan rabaa telefoonkaygana inaan chance siiyo in ka hadlaan Ibrahim saa u daawadina soo sheegayay runtii waxaad moodaa sida ay wax u socdaan iyo halka arrin maanta marayso dad fara badan waxay dareemayaan marka la eego waxyaabaha ka soo baxaya wadankii wararka soo yeeraya waxyaabaha media ay qorayaan runtii in ay soo gaadhay meel la oran karaba dadkii talada loo dhiibtay iyo xisbiga lafdiisiiba way ma taqaanaa ay ku fashilmeen arrintaas oo artayda wallahi runtii de fashilaad way taaganto maadaama maanta heerka ay marayso oo maanta Hargeysa dhig ku daatay oo maanta Hargeysa awood ciidan iyo awood reereed iyo buuq iyo qaylo iyo rabish iyo heer yani aan la mareyn karin ay maanta taagan tahay runtii de fashilaad way taala waxa weeye in heerkaaba ay soo gaadho de ma yahayna in dimuqraadiyadii iyo geedi socodkii iyo wada shaqayntii iyo ilaalintii sharciga in la tixgeliyaaba ahayd oo mar horeba ay hawshani dhamaato oo waxa weeye xisbiga gudihiisa isagoo oo aan khilaafaad iyo buuq iyo waxba toona aan iman awalba kulmiye aniga mid baan waan ku ogaa kulmiye ma garanaysaa maxay ahayd sida tan xafiltan kan iyo eriad kan iyo wax waan ku ogaa laakiin heerkan maanta ay marayso waa heerna soo maray maaha waayo weligii kulmiye wuu lagdamaa wuu isqabsadaa wuu is-eryadaa waa caynkan hore waxba uma qabsado waxa weeye siday ay isu eryanayaan ayay marka dambe soo dhameeyaan oo khilaafaadkooda ayay soo dhameeyaan laakiin khilaafaadkii maanta wuu ka baxayo khilaafaad awoodeed khilaafaad ciidan khilaafaad buuq khilaafaad kooxo dhinac la isku ururinayo khilaafaad
qabyaalad iyo waxyaalo badan buu maanta galay marka oo cad oo runtii waxa weeye aan waxba aan heer maanta Somaliland heerkii laga filayay maanta ma taagnan runtii dhaawac weyn baa Somaliland maanta soo gaaray marka waxa weeye waxa loo baahan yahay anigu eedan waxaan saaraya jileec wuxuu ka yimid had iyo jeer shaqadii guurtooda lahayd ayay shaqadeedii qabtay halka uu qaladka ugu weyn ka yimid maanta dabacsanaantu ka timid arintaasi suurtagal leedahay ma garanaysa waxba dalka ugu qabsami laayihiin waxa weeye guurtidu inay hawshii loo idmaday ee ahayd daxdaadinta iyo khilaafaadka xalintooda inay dhinacii qaldan runta u sheegaan oo ay markiiba inta arinta galaan xalilaan bay ahayd oo ay kala joojiyaan intaana heerkaaba gaadhin wax ka qabtaan bay waa si fiican runtii waxa la moodaa atmaantay in ay dad fara badan oo kale aniga ku leeyihiin waxta adiga laftaada ma taqaana lagu carabaabe hadeertoo miyaanay danta Somaliland iyo qarnimada Somaliland iyo madaxbannaanida Somaliland aanay ka weyneyn kursi iyo ma taqaana saldanad la isku qabsado biyad ilowda wixii jirto loo soo maya waa sax waxa weeye runtii madaxbannaanida Somaliland iyo jiritaanka Somaliland ayaa wax walba ka weyn jiritaanka Somaliland iyo madaxbannaanida Somaliland waxay u baahan tahay in sharci lagu dhaqo waxa weeye xisbiga kulmiye markaanu hayna anagu aan u soo halgami jirnay xisbiga hal hays waxaan u lahayn in dastuurka qaranka la ilaaliyo in sharciga la ilaaliyo laakiin maanta waxa weeye qodobkii baa wali taagan waxa weeye kii aan dastuurkii sharciga la ilaaliyo way hadii dastuurkii sharcigu uu ilaashami waayo de Somaliland ma jirayso waxa weeye hadalka anagu soo jeedinayna abaanu ka hadlaynaa amba dad imka ay tireen inaan dhex ka soo hadlayba anigu waxaan ka hadlayay sharcigan ka hadlayay waxa weeye cidda aan la hadlayo waa cidda midida daabkeeda haysa ee la hadlayay marka oo aan lahaa adiga maanta midida daabkeeda hayay sharcigii iyo dastuurkii ku noqo oo wixii aynu soo halganay ee aynu soo dhisnay ee ka soo shaqaynay ayaanay burburin okay waa soo wanaagsan runtii marka la eego dib loogu noqdo hogaamiyaasha ama madaxweynaha noqoto ama Muuse Biixi noqoto runtii labadaba waxa ay ku suntan yihiin oo loo yaqaan inay garwadana ka ahaan jireen halgankii dheeraa ee loo soo maray dixweynaha wadankan oo intaasoo kun oo qof ay runtii ma taqaana ku geeriyeen intaasoo dumar ay ku gobolomeen intaasoo qof ay ku dhaawac maanta la xadlaayihiin ku joogaan marka hadaba la arko dadkii hawshan og yahay iyo dhibaatada lagu soo martay dadkii hawshan bilaabay iyo siday maanta u dhaqmayaan maxaa markaa uga dhaxmuqan dadkii shacabka see loo arki karaa waxa loo arki karaa horta shacabkuna eed buu leeyahay guurtoodu eed bay leedahay golaha wakiiladu eed buu leeyahay golaha xisbiyaduna eed bay leeyahay waxoo dhan way ku wada jiraan waayo shacabku hadduu wanaagsan yahay waxaan ma dhaceen ko haddii ay golaha wakiiladu hagaagsan yihiin waxaan ma dhaceen oo xeer baa lagu soo dabaala sharci baa lagu soo dabaala haddii golaha guurtigu ay hagaagsan waxaan ma dhaceen xisbiyada qaranku waxa loo idmado oo loo sameeyay in ay wixii qaldan sheegaan iyo ka laftoodu ilaa haday Soomaaliland wax noqoto iyaga ka burburaysa waxa weeye iyaga damacle iyo ka dooni dalka xukuumad inay dadka tusaan inay ka kadsan tahay shacabku iyagu soo raaci laha hadalkooda xitaa imka ma hadal arinta kama hadal iyaga laftoodu waxa weeye waayo xisbigii hore kulmiya uu burburay kii hore uu cudub burburay hadii maanta kulmiyana raaco de qarankii Soomaaliland daawac weyn baa gaaray marka daawaca gaaray wixii la soo dhisay waxa weeye labadan xisbi ma helayaan chance laftooda ay iyagu doorasho ku yimaadaan marka wixii oo dhan way ku wada jiraan mawti adoo soo koobay waqtiga naga madartay maxaad ku soo gabagaban lahayd kula tan lahayd shacabka iyo xisbiga iyo dawladda iyo dadka Soomaaliland waxaan kula talin lahaa shacabka reer Soomaaliland in ay indhaha kala furaan oo ay wixii xaq ku jiro ay xaq raacaan guurtida waxaan leeyahay dhexdhexaad inay noqdaan inay si cadaalad ah oo ay ummadana wixii loo idmada ay ugu qabtaan labadan nin ee isku eriyanayna ee labada xisbiga kulmiye iyo xukuumadana waxaan leeyahay Somaliland waxba ku soo caanamaashay waxay ku soo caanamaashay in wada xaajood lagu sameeyo in khilaafaadka wixii yimaada laga wada hadlo in la xalilo in la isdageysto in tala wadaag la yeesho yaan laga tagin wanaagii xisbiga kulmiyana hal la ilaaliyo yaanu dumin aad iyo aad baad basantay daawadeel waxaan soo gaarnay guntiga gabagabada barnaamijkan intaan kan kala kulmi doono waa anigoo xaashi cabdi warsamo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu thank you